Asalaamu calaykum. Soo dhawaada meel walba joogtaan. Maanta barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa wadamada ugu awood badan dhinaca militariga. Inta aanan muuqaalkan bilaaban, haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqotay channelkan, waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe saarto si aad ula socoto wax walba oo aan soo gelino. wadamada ugu awood badan dhinaca militariga adduunka. Wargeyska Global Firepower oo sanad kasta isbarbardhig ku sameeya awoodaha militariga adduunka ayaa soo bandhigay liis ay ku jiraan 138 wadan iyo sida ay u kala awood badan yihiin. Qiimeynta wargeyskan sameeyay waxa uu u cuskadaa tirada hubka wadamadaas, ciidankooda, dhaqaalaha ay ku bixiyaan dhinaca dhismaha militariga. kaalmaha ugu horeeya liiskan ayaysan inta badan waxba iska bedelin sanad kasta, hase yeeshee dalalka qaar ayaa sanad walba ku kala duwanaada awooddaas. afarta kaalmood ee ugu horeeya isma bedelaan sanadihii la soo dhaafay, waxa ay ku kala jira dalalka kale ah Mareykanka, Ruushka, Shiinaha iyo Hindiya oo ah afarta wadan ee haddeertan ugu awood badan adduunka. hoos u dhaca ku yimid dalka Turkiga ayaa markii ugu horeysay tan iyo sanadkii 2020 ka baxay liiska 10 wadan ugu awood badan dhinaca militariga adduunka. liiskan Masar ayaa markaan soo cariirsatay 10 ugu horeeya, taasi oo aan horay u suura gelin sanadihii la soo dhaafay. dalalka kale ee soo raaca liiskan 10 ka kooban oo uu hogaaminayo Mareykanka ayaa kala ah Japan, Kuuriyada Koonfureed, Faransiiska, Ingiriiska, Masar iyo Brazil. labadii sano ee la soo dhaafay, Turkiga waxa uu ku jiray kaalinta 9aad, halka labadii sano ee kasii horeysay uu ku dhameystay kaalinta 8aad. laakiin sanadkan waxa uu soo galay kaalinta 11aad. saameynta uu Sacuudiga ku yeeshay awoodda militariga adduunka. inta badan 25 dal sanad walba liiskan ugu horeeya ma sameeyaan isbedel xoog leh. qaarkood ayaa hoos u dhac sahlan sameeya, laakiin isbedelka liiskan sanadkan waxaa aad ugu dhex muuqda wadanka Sacuudi Carabiya oo markii ugu horeysay liiskan ugu sareeya Israa'iil. boqortooyada uu maamulo Salmaan bin Cabdicasiis ayaa ku jirta kaalinta 17aad, halka Israa'iil ay ku jirto kaalinta 18aad. sanadkii 2016 Sacuudiga waxa uu liiskan ugu jiray kaalinta 24aad, halka Israa'iil ay ugu jirtay kaalinta 16aad. sanadkii xigay 2017 Sacuudiga waxa uu ku sii noqday kaalintiisii hore ee 24aad, halka Israa'iil ay gashay kaalinta 15aad. 2018 Sacuudi Carabiya waxa laga waayay 25 wadan ee ugu horeeya adduunka, ayadoo Israa'iil ay gashay kaalinta 16aad. sanadkii la soo dhaafay 2019 Sacuudiga waxa uu si dirqi ah ku soo galay kaalinta 25aad, halka Israa'iil ay ku jirtay kaalinta 17aad. waxaan soo qaadan doonaa 25 wadan ugu awood badan adduunka. kaalinta koowaad waxaa ku jira Mareykanka, labaad waxaa galay Ruushka, saddexaad waxaa galay Shiinaha, afraad waxaa ku jira Hindiya, shanaad waxaa ku jira Japan, lixaad waxaa ku jira Kuuriyada Koonfureed, toddobaad waxaa ku jira Faransiiska, sideedaadna waxaa ku jira Ingiriiska, sagaalaad Masar, tobanaad Brazil, 11aad waxaa ku jira Turkiga, 12aad Talyaaniga, 13aad Jarmalka, 14 Iran, 15 Pakistan, 16 Indonesia, 17 Sacuudi Carabiya, 18 Israa'iil, 19 Australia, 20 Spain, 21 Poland, 22 Vietnam, 23 Thailand, 24 Canada, 25 Kuuriyada Waqooyi. Soomaaliya ayaa sanadkan liiska ka kooban 138 wadan ugu jirta kaalinta 136aad. labada wadan ee ka hooseeya Soomaaliya ayaa kala ah Liberia iyo Botswana. muuqaalkeena maanta intaas uu ku eg yahay. sidaas iyo amaan Allah.